السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو أولالكين أكرم عبد الله ما توحى إني وذا شيكا حيسا بدن أو كشيكينيسي حاسنمدا بلس إنتان الشيكادينو قدا قلين فلن هدان نقو عصبتها channel كينا صوباقو سبسكراب سار قنبليل كريح سيادو نقطو قفك أغهري فيديوهاشينا داوضه وآيا waxaa jiray laba nin oo saaxiibo ah midna wuxuu ahaa bakheel midna wuxuu ahaa xaasid waxay u tageen boqor u dhawaa Allah subhanahu wa ta'ala waa boqor ah markay boqorkii u tageen isla markiiba boqorku wuxuu ku yiraahday waxa doontaan i weydiista labadiinan wax walbaad i weydiisataan waa in siinayaa wuxuuna u sii raaciyay kiina su'aasha ku horeeya maahe kan dambe waxaan siinayaa kii hore wuxuu i weydiistay laba jibaarkeed ama laban laabkeed baan siinayaa labadiina meeshii bay isku qabsadeen iyagoo isku haysta iga hormar iyo iga hormar mid walban wuxuu raadinayaa kan hore wuxuu weydiistay laba laabkeed in la siiyo markii istijiidkoodu uu farabatay ay kala bixi waayeen ayaa boqorkii waxa uu ku yiraahday Allah subhanahu wa ta'ala waa boqore labadiinan qof hadii aadan degdeg u kala bixin labadiina boqorta ayaan iniga jarayaa marka ayaa waxa soo booday ninkii xaasidka ahaa waxaana uu yiraahday boqor Allah subhanahu wa ta'ala waa boqore aniga ayaa su'aasha ku hormaraya waxa uu na weydiistay bal waan arki doonaa waxa uu weydiistay inuusan xaasid khayr lahayn kullayba waan ognahay haddaan u soo noqono su'aasheeni ah uu weydiisanaya boqorka waxa uu ku yiraahday boqor waxaan ka codsanayaa labadeeda indhood il ka mid ah inaad iga tuurto go raadinaya in ninka bakheelka ah labada indhoodba laga tuuro oo waxay ahayd su'aasha uu marka hore boqorku yiraahday labadiinan ka su'aasha ku horeeya maaha kan kale waxaan siinayaa kan hore wuxuu i weydiistay laban laabkeed ama laba jibaarkeed sidaa darteed ayuu wuxuu u weydiistay ninka xaasidka ah in labadiisa indhood il ka mid laga tuuro si kan bakheelka ah labada indhoodba looga tuuro halka ayuu ninkii bakheelka ahaa labadiisa indhood ku waayay ninkii xaasidka ahaana ishiisa ku waayay sidaas la mid ah ayay dadka qaar u fakaraan waxyaalo noloshooda muhiim ah inay u lumiyaan si ay dadka kale inta ay waayeen laba jibaarkeed ay iyakuna u waayaan dadkaasna waxaan oran karnaa waa dadka xaasidiinta ah sababtoo ah xaasidku ma fiicna oo quraanka lagu sheegay nabiguna waa uu ka hadlay isagoo yiraahday nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaasidka ka fogaada ajar iyo xasanaadkan waxa uu cunaa si xaawadu dabka u cunto sidaa darteed walaal macaan ka fogow qofka xaasidka ah sababtoo ah wuxuu ka cunayaa ajarka iyo xasanaadka waxa uu ku soo jiidayaa dambi noloshaadana uma fiicna dhabarka ayuu ka tooganayaa sababtoo ah alxaasid la yuflih xaasidku marnaba ma liibaano walaal macaan marka aan iska ilaalina xaasidnimada waxa naftadaada la jeceshahay la jecelo walaalka sababtoo ah waxa ku walaaloodeen kelimada ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah waxa naftadaada la jeceshahay la jecelo walaalka adiguna walaal macaan waxaan kugu boorinayaa ama kugu waaninayaa inaad ka fogaato dadka xaasidiinta ah sababtoo ah kuma fiicna mar mustaqbalka ay ka hor istaagayaan mar dambi way ku soo jiidayaan marna shakhsi ahaantaada uma fiicna adiguna walaal macaan iska ilaali dabeecadahaas oo kala fadlan haddaad nagu cusubtahay channelka subscribe saar waanigu ah walaalkin Akram Abdullah waxaan iniga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.